السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داودي لهانتي بميل كستو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena duur joogta barnaamijkeenan oo ah taxanihii inoo socday ee dalka Botswana gaar ahaan Okavango Delta waana qaybteennii saddexaad ee barnaamijka balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo galino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay sida xayawaan kasta u nool yahay qoys ahaan sida ay duureedkan oo kale ayuu dameer farowguna u nool yahay qoysas isku tiirsan waxaanay ku nool yihiin Okavango Delta sidoo kale waxay u baahi qabaan doogga iyo biyaha oo markasta ay baahidoodu iyo cuntadooduba ay ku xidhan tahay waxaana intaaba ka helayaan dhulkan ay ku nool yihiin xilligani waa xilli jiilaalaha dhulku uu isbedelay biyihii way uumi baxeen waxaana dhulkii noqday dhul milix leh ama dhanaan dhulkan Okavango Delta boqolkiiba 40 ayay biyihii uumi baxeen waxaana isu bedeleen milix dameer farowgu waxa uu cunayaa milixdan waanu u baahan yahay oo jirkiisa ayaa u baahan inuu sanadkii xilligan jiilaalka oo kale uu cuno tani waa milix soocan oo fadhida waxaanaynu arkaynaa in biyihii ka tegay ama uumi baxay ay kaga tegeen halkaas oo ay sameeyeen dhulkana isbedel cusub ku yimi kuwanina waa deerooyin iyaguna qayb kaga nool dhulka Kalahari waa qoysas waxay geedka ka isticmaalayaan dhanaankii milixda ee uu kaga tegay biyihii uumi baxay way u baahan yihiin mar kasta ama sanadkii hal mar bay u baahan yihiin waxtarka ay milixdani u leedahayna waxaa ka mid ah calooshooda waxaa kaga dhalan karaa cayayaano
ama bakteeriya, kuwaas ayay ka dilaysaa milixdani. Isla goobtan waxaa ku nool isna harimcad dhadig, kaasiyo isagu keligii ku nool goobtani. Kuwani waa deerooyin lab, waxay isku haystaan hoggaaminta qoyskan. Marmarka qaar waxay isgaadhsiiyaan dhaawacyo halis ah, sababtoo ah geesahooda dhaadheer ayay isku dhaawacaan. Labadan qoyska isku haysta mid ka mid ah wuxuu u baxay gadaal ama dib ayuu uga baxay dagaalka, sidaas ayaana lagaga guulaystay qoyskana. Kaasi kale ayaa markaasi hoggaankiisa haynaya, marka horena isaga hayay. Harimcadkani waxa uu u baahan yahay cunto inuu helo uu ugaarsado. Deerooyinka laftigooguna waxa ay ku nool yihiin xuduudda harimcadkan dhadig. Harimcadkani keli ayuu nool yahay, waxa uu jiraa muddo 2 sannadood ah, waxaanu ku nool yahay isla goobtan, xuduuddiisuna isla halkan ayay tahay. Wuxuu ku ugaarsadaa khibradda uu dhulkan u leeyahay, maadaama uu dhulkan muddo 2 sanno ah joogay. Waxaa u fudud ugaarsigiisa. Durba wuxuu bilaabay sidii uu u ugaarsan lahaa. Balse deerooyinka dareenkooda oo mar walba taagan ayaa wuxuu dhaliyay in ay ka yaacaan. Halkaas ayuu ugaarsigiisiina ku waayay, balse waxa uu fuulay geedkan. Wuxuu u yahay meelaha ugu wanaagsan ee uu wax ka ugaarsan karo, sidoo kalena uu ku nasan karo. Wuxuu baarayaa fursad kale oo uu ku ugaarsado. Sidoo kale
kuma xidhna duurjoogta oo keliya harimcadkani. Wuxuu ugaarsadaa kalluunka ku nool halkaa iyo weliba shimbiraha. Webigan waxaa ku nool jeer aad u tiro badan. Dhulkani waxa uu dhulka kale kaga duwan yahay. Cawska iyo biyaha ayaa isdhex yaalla. Biyuhu ma dheera oo inta badan duurjoogta ma liqayaan, balse waa biyo ay ka tallaabi karaan, cabbina karaan. Harimcadkii dheddigaa waxa uu bilaabay fursadiisii ugaarsiga. Waxaanu ka bilaabay durba geedka dushiisa. Fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. Sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. Fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. Inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay daawadayaal, waa qaybteennii saddexaad. Inta aynu ku kulmi doono qaybtan xigta, waxaanu dhammaantayo idinkaga tegaynaa nabadgelyo.